Asalaamu calaykum saaxiibayaal meel walba dunida ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub. Waxaa laga yaabaa inaad maanta cabtay koob kafee ah, ama maalin kasta cabto, ama toddobaadkii maalin cabto. Kafeegu waa cabitaanka labaad ee ugu caansan ee laga cabo dunida. Maanta waxaynu ka hadlaynaa shirkadda Nescafe amba kafeega. Nescafe waa shirkad soo saarta cabitaanka kafeega. Waxaa la aasaasay 1938 waxaana aasaasay nin la oran jiray Henry Nestle. Xarunteeda ugu weyni waxay ku taalaa Switzerland. Waxay xarumo ku kala leedahay in ka badan 180 waddan oo dunida ku yaala. Kafeega waxaa jecel dadweynaha caalamka, aadna waa loo cabaa. 2.25 bilyan oo koob ayaa la isticmaalaa amba la cabaa maalintii. Kafeegu waxa uu ku gelinayaa firfircooni markaad cabto, waana sababta loo cabo badanka, waxaana uu kaa saarayaa caajiska. Arabica coffee waa nooc ka mid ah iniinaha amba siidhka laga sameeyo kafeega. 400 oo bilyan oo koob oo Nescafe ah ayaa sanadkii la cabaa amba la soo saaraa. 15,000 oo Nescafe ayaa la isticmaalaa sekinkiiba. Coffee waxa uu ka yimid dhirta amba geed. Haddaba dadku maxay u jecel yihiin coffee? Coffee waa natural 100%. Kafeegu waxa uu ku gelinayaa firfircooni zaid ah. Kafeega asalkiisa hore waxaa laga helay Itoobiya, waxa uu sii gudbay dalka Yemen, kadibna waxa uu sii dhaafay caalamka. Qarnigii 17aad ayaa laga helay qaaradda Yurub. Dalka ugu badan ee dhoofiya amba soo saara caalamka waa Brazil. 450 milyan oo jawaan amba baagis ah ayaa sanadkii la soo saaraa amba la dhoofiyaa. Weliba nooca loo yaqaano Arabica beans waa nooc ka mid ah kafeega. Brazil ayaa ah tan ugu badan soo saarista kafeega adduunka, iyadoo maamusha in ka badan 30% wax soo saarka caalamka ee kafeega. Waana badeecooyinka ugu muhiimsan ee suuqgeynta, adkeynta, joogteynta iyo qiimaha sii kordhaya ee suuqa saamiyada. Waxayna Brazil u dhoofisaa Mareykanka oo ah kan ugu isticmaalka badan dunida. Dalka ugu badan ee soo saara amba soo dhoofiya kafeega ee qaaradda Afrika waa Itoobiya, waxaana loo dhoofiyaa Yurub, Ameerika iyo Jaban. Kafeega waxa uu muhiim u yahay dhaqaalaha Itoobiya. 60% dhaqaalaha Itoobiya waxay ka timaadaa dhoofinta kafeega, iyadoo qiyaastii 15 milyan oo ka mid ah dadweynaha Itoobiya ay ku tiirsan tahay qayb ka mid ah wax soo saarka kafeega. Itoobiya waxay leedahay qiyaastii 3% suuqa kafeega adduunka. Qaaradda Aasiya, dalka ugu badan ee dhoofiya amba soo saara waa Vietnam. Celceliska qiimaha kafeega la dhoofiyo ayaa ku dhow $3 bilyan sanadkii, oo ka dhigan in ka badan 1% wadarta dhoofinta beeraha dalka. Kafeega ayaa ah 97% wax soo saarka dalka Vietnam. Latin America, dalka ugu badan ee soo saara amba dhoofiya waa Brazil. 2 bilyan oo koob oo kafee ah ayaa laga cabaa dunida maalintii oo dhan. Haddii aad cabto kafee badan, waxa uu sababi karaa in aad biyo badan cabto. Haddaba waxtarka caafimaad ee kafeega. Kafeegu waxa uu kordhiyaa tamarta jirka. Kafeegu waxa uu gubaa baruurta jirka ku jirta. Kafeega waxa ku jirta macdano muhiim u ah jirkeena. Kafeegu waxa uu hoos u dhigaa sonkorta jirka ku jirta. Kafeegu waxa uu ilaaliyaa xanuunada beerka ku dhaca. Kafeegu waxa uu hoos u dhigaa khatarta kansarka.
Kafeygu waxa uu ka hortagaa sunta jirka soo gasha. Kafeygu waxa uu ridaa miisaanka qofka. Kafeygu waxa uu yareyn karaa stresska amba buuqa amba diiqada. Waxyeelada kafeyga. Kafeygu wax badan sun ayuu kugu noqon karaa. Kafeygu badani waa ku dili karaa. Hadaad uur leedahay ha cabin kafey badan. Wax ka badan hal koobna ha cabin maalintii. Hadaad leedahay cholesterol badan fadlan cab kafey shaandhaysan. Kafeygu carruurta yaryar waxa uu sababaa habeenkii hurdada inay ku kaajaan. Kafeygu waxa uu sababaa hurdo la'aan. Hadaad kafey badan cabto madax xanuun ayuu sabab u noqon karaa. Kafey badan hadaad cabto waxa uu sababi karaa kor u kaca cadaadiska dhiigga.